wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadal ay saacadii la soo dhaafeen ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta caalamka taas oo ku aadaneed in qaar ka mid ah qoyska wasiirka arrimaha dibadda ay ku beereen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo qoraal ku daabacay bartiisa X ayaa markaas ku sheegay in hadalkaas uu yahay mid been abuur ah isla markaana ay ka dambeeyeen kooxda doonayeen marxabaabiyaan ummadda Soomaaliyeed marka ayaa si gaar ah hadalkan faafintiisa ugu eedeeyay maamulka Soomaaliland oo ku sheegay inay ka xun yihiin guulaha isdaba jooga ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka gaarayso dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca militariga intaba oo sidoo kale qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay in ay ka go'an tahay in ay difaacaan xuquuqda ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay sii xoojin doonaan xiriirka diblomaasiyadda ay leeyihiin beesha caalamka maamulka Soomaaliland la haatan wax warar kama soo saarin hadalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa marar badan sidaan oo kale waxa ay Soomaaliya ka faafiyeen warar been abuur ah taas oo markii dambe ay ka saareen barahooda bulshada